maalin maalmaha ka mid ah salaad subax anigoo masaajid ku tukaday oo fadhiya abaara markay ahayd 6dii baa nin noo yimi ama waxbaa dhinaa daqiiqado markaasuu wuxuu yidhi ragaan badnayn baanu markaa masaajidka dhexdiisa ku fadhinaa aan isleeyahay 10 waa ka yartihiin oo teel baan u fadhinaa masaajidka ninba dantiisu u fadhiyaa dabeetana ninkii wuxuu naga codsaday qof dumara oo ka xanuunsanaysa oo ooridiisa oo aqalka joogta inaanu adkaar iyo quraan ugu soo akhrino aad buu noogu celceliyey war xilligan waa xilligii la kala shaqo tegi lahaa shuruuqii baa la sugayaa waqti waa nagu adag yahay markuu nagu ilxaaxiyey waa iska aqbalna waa tagnay aqalkii baanu tagnay waa guri nusbalooda 3 maqsin iyo suuliye kitchen iyo waxa ka kooban kadinka markaanu ka galnay isagaa naga horreeyey dibaddan yara istaagnay wuxuu yidhi soo gudba dabeetana waa aqalkii 3dii maqsinkii u horreeyey ee bidixda sidaasay u safan yihiin ayuu yidhi kan soo gala markaasaanu gallay qolka dhexdiisa waxba ma yaallaan wax gogola waxba ma yaallaan laakiin qof dumara baa waxay kada loobtaayoo fadhidaa raarta ama sabarka u dambeeya qolka dee gidaarka kada loobtaayoo sidaa u fadhidaa markaasa waxaan ku yidhi bal daaqadda yara furo si wax loo arko daaqaddii buu furay waa soo galnay qof dumara waxay fadhidaa aqalka halka u dambaysa gidaarka bay kada loobtaayoo dhabarkay ku haysaa gidaarka markaasuu yidhi qoftaa waa xaaskaygii waxaan doonayaa inaad niman yahow bal quraan ku akhrisaan waxba waa ka garan waayey arrinkeeda ilaa xalay xaalkeedu ma wacnayn dabeeta waxaan ku nidhi bal ag fadhiiso oo maryahana u hagaajiyo dee haddii ay lacalla bal dhaqdhaqaaqdo wax iska beddelaan u diyaar garow ile adigay ooridaadii tahay inaad si wacan u qabato annagu qaban kari mayne qur-aankii baanu ku bilownay waa ku akhrinay waxoogaa markaanu ku akhrinaynay bay waxay bilowday inay sida bisadda u ciido gabadhii yaw bisad ciyaysa weligaa ma aragta annagii baa yaabnay qur-aan ku akhrinaynay qur-aankii baanu joojinnay waxaan isnay bal hubsada horta ma gabadhan aad qur-aanka ku akhrinaysaan baa sida bisadda u ciyaysa mise bisad baa qolka ku jirta horta waa ku celinay mise sida bisadday u ciyaysaa gabadha qur-aankii baanu ku wadnay ku akhrinay waxay sida bisadda u cidaba oo sidaas marba tidhaahdo sidaa marba tidhaahdo markii dambe caadi bay iska noqotay markay xoogaa kala degtay baan su'aal weydiiyey waxaan ku yidhi maxaa ku helay xaggee lagaa hayaa sidee tahay waxay tidhi shalay salaaddii duhur ka hor anigoo qadadii reerka u karinaya ayaa halkan waxaa ii saarnaa dheri biyo ah oo aan islahaa aad baasta ku karisid dabeetana anigoo suugadii iyo wixii aan samayn lahaa cadkii jarjaraya ayaa bisadii kadinka ka soo gashay albaabkoo furan dabeetana cadkii yaraayaan islaad qadada ku karisid bay la boodday biyihii baylka ahaa ee baastada aan u diyaariyey ayaa intaan darsaday koob baan ka daba ordayoo kadinkaan ku gaaro waa ku shubay halkaasay ku kogtay bisaddii oo naftii kaga baxday markaasaan intii koobka ku hadhsanaydna u raaciyey bay tiri iyadoo caqdaa leh markay sidaa u kogtay bisaddii bislaatayna waa tuuray bay tiri markaan ka soo noqday ayaa xanuunkaasi igalay bay tiri ilaa iyo xaalkayguma wacnayn wakhtigaa laga bilaabo ilaa iyo wakhtigaa arrintaasi waxay tusinaysaa qaybihii dulmiga ee muxaadarada ku jiray dulmu alcabdi lilxayawaan qofku inuu xayawaanka dulmiyo khatarta ay leedahay waa sidii nebiga sal allahu alayh wasalam habeenkii maalintii cadceeddu madoobaatay isagoo salaaddii tukinaya dibna u soo gurtay tallaabooyin mixraabka isagoo taagan horena marka qaarkood uu u tallaabsaday
oo yidhi naartaa maanta lay tusay weli waxa aan ku arkay wax la mida ma arag sidaasaan dib ugu soo gurtay jannadana waa lay tusay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku arkay naarta gudaheeda qof dumaroo naarta gudaheeda lagu cadaabayo oo ay bisadi cunayso bisadaasoo ay sababteedii ahayd inay xidhay oo biyo iyo baadna aanay siin dabeetana ay xariggii ku baktiday bisadiioo cunaysaan arkay buu yidhi sababtii bisadaasaana lagu cadaabay sidaas marka waxay tusinaysaa in nooc khatara tahay dulmiga xayawaanka la dulmiyo waxaan kaloo anigu goobjoog u ahaa nin askarta ku jira iminka waa dhintay allah u naxariisto wuxuu ku jira qaybaha dembi baarista iyo CID-da nin xoog weynna uu ahaa marka qof la soo qabtoo la keeno dadka kabaha buurku ku laadi jiray meel alla meeshii uu doono kaga dhufan jiray laadka rag iyo dumarba waa laadaya markaasuu dadka aad u laadi jiray habeenkii dambuu seexday qolo gaadhi ka degtay oo sarcaal dheerna soo gasho aad u daalan ayaa goor galaba laga rogay gaadhigii markaasaa loo tegayo waa lala hadlay war dadkan iska sii daayo baadna waa ka qaadaa dadka waana laaya dadkiibuu marka laad nin odaya buu si xun u laaday markaasuu dhirbaaxana ugu daray odaygii baa dhacay markaasuu odaygii mantagay habeenkii ku laba ahaa buu seexday lugta midig faryarada iyo farta ku xigta dhexdooda fin yar baa ka soo baxay finkii odaygii baa marka wuxuu yidhi iska daaya ilaahay waxaan ka baryayaa lugtaa uu igu laaday ilaahay inaanu mar dambe dib ugu tallaabsan baan ka baryayaa ninkii waxaa dhacday fin yar baa ka soo baxay labada farood dhexdooda waa fin ilaahay wato lugtii baa waxay la ekaatay wuxuuna ilaahay xaalkeeda ogyahay jiif iyo joogba waa ka tegey lugtii waxaa la jaray dhudhunka xagga canqowga ka saraysaa laga jaray xanuunkii waa joogi waayey waxaa laga jaray lowga agtiisa waa joogi waayey xanuunkii markii saddexaad baa halkaa misigta iyo lugtuu iska galaan misigtii oo dhan baa la saaray lugtii oo dhan baa la saaray gebigeediiba markuu ladnaaday oo intaa ilaahay ugu joojiyey ayuu dee bire iyo waxbuu qaadan jiray oo wuxuu bilaabay inuu birihiina qofka uu afgaran waaye la dhaco cishadii dambe labadii keliyoodna fadhiisteen isagoo dhakhtar loo wadaa naftu ka baxday dulmigoo caaqibadiisu wax sahlan ma aha